5 caadooyinka guurka farxadda leh qof walba waa inuu ogaadaa. Xeerarka guurka farxadda leh. Ereyga guurka farxadda leh ayaa laga yaabaa inuu dadka qaar ugu ekaado oxymoron, laakiin ma aha inay run ahaantii sidaas noqoto. Taa beddelkeeda, xiriirka farxadda leh iyo guurka waxay ku dhismi karaan waqti kadib dadaal wadaag maalinle ah, kalsooni, isfaham, ixtiraam iyo jacayl. In kasta oo lamaane kasta uu gaar yahay, waxaa jira dhowr siro caalami ah oo ilaaliya xiriirka mid adag oo farxad leh. Kuwani maaha fikrado sare laakiin caadooyin sahlan oo aad bilaabi karto maanta si aad u dhisto guur farxad leh. Halkan waxaan ku taxnaa qaar ka mid ah talooyinka sida midba midka kale ka horraysiiya. Inta badan waxaa la arkaa in lamaanayaasha qaar ay wadaagaan xiriir iyo saaxiibtinimo weyn, in isfaham la'aan uu ka dhex aloosmayo marka qoyskooda ama saaxiibkood ay bilaabaan inay farageliyaan. Haddaba, sirta koowaad ee guurka farxadda leh ayaa ah in lamaanuhu ay mar walba mudnaanta koowaad siiyaan midba midka kale, kana sarreeya inta kale. Lamaanuhu waxay u baahan yihiin inay fahmaan in lamaanahoodu yahay saaxiibkooda ugu fiican iyo ka ay wadaagaan noloshooda iyo qoyskooda. Sidaas darteed, waxay u baahan yihiin inay si wada jir ah u wada shaqeeyaan oo ay u wada joogaan midba midka kale si uu u sii adkeeyo xidhiidhkooda sannadaha soo socda. Tani waxay ka caawin doontaa inay abuuraan nolol iyo qoys wada jir ah. Haddii aad rabto warbixintan oo kale, fadlan guji sabskaraabsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan, ha iloobin inaad nagu soo biirta. Mahadsani. isku furnaada oo ku wada xiriira jacayl iyo naxariis. Sheeko run ah ayaa laf-dhabar u ah guur kasta oo waara. Kala hadal maskaxdaada lamaanahaaga, laakiin si tartiib ah u samee. Sidoo kale, isgaarsiintu waa inay noqotaa waddo laba dhinac ah. Xidhiidhka wanaagsani kuma koobna oo kaliya hadal furan oo daacad ah, laakiin sidoo kale dhegaysi firfircoon oo aan xukun lahayn. Waqti u samee maalin kasta si aad u hubiso lamaanahaaga, la wadaag guulahaaga, niyadjabkaaga, ama si fudud sida aad dareemayso. Ka fogow sheekaysiga marka aad xanaaqsan tahay, beddelkeeda isticmaal odhaah waxaan dareemayaa, halkii aad ka ahaan lahayd adiga mar walba, si aad u muujiso shucuurtaada adigoon eedayn. Dhanka kale, dhegaysiga firfircooni wuxuu muujinayaa inaad si dhab ah u daryeesho oo aad fahantay rayiga lamaanahaaga. Muddo kadib, caadadani waxay yaraynaysaa ismaandhaafka waxayna abuurtaa kalsooni dhexdiina ah. Muuji mahadnaqaada iyo qadarintaada maalin kasta. Cilaaqaadka dhexdiisa, dhaqdhaqaaqyada yaryar ee fikirka leh ayaa ah kuwa ugu muhiimsan dad badan. Sidaa darteed, xitaa mahadsanid iyo waan ku jeclahay waxay u socdaan waddo dheer si ay lamaanahaaga u dareemaan in la jecel yahay, la qiimeeyo, lana maqlo. U fiirsa waxyaabaha maalinlaha ah ee lamaanahaagu sameeyo, kafee samaynta, ka saarista qashinka, ama bixinta laabta, oo u qirsi daacad ah. Xoojintan togan waxay kor u qaadaysaa niyadda waxayna xasuusinaysaa labadiinaba sababta aad isu jeclaateen markii hore. Qabso dabacsanaan iyo tanaasul. Ma jirto laba qof oo dunida u arkaya si isku mid ah. Isku dhacyadu waa wax caadi ah xiriir kasta, laakiin waxa muhiimka ah waa sida qaangaarka ah ee aad u xalliso dhibaatada. Ka hor dagaalka ka hor, isweydii waxa ugu muhiimsan runtii oo dooro dagaaladaaga si caqli ah. Baro tanaasulka oo iska dhaaf waxyaalaha qaarkood kuwaas oo laga yaabo in aanay muhiim ahayn mustaqbalka fog. Mararka qaarkood waxaad dalisaa, marna adaa hogaamisa. Isku dheelitirka wax isbixinta waxay abuurtaa dareenka cadaaladda iyo wada shaqaynta xiriirka. Waqti tayo leh wada qaata. Lamaanaha intooda badan maalmahan waxay leeyihiin jadwal aad u adag kaas oo ka taga waqti yar oo naftooda ah, ama midba midka kale. Mustaqbalka fog, tani waxay ka dhigi kartaa lamaanahooda inay dareemaan inaan la arki karin, aan la maqlin, ama aan la qiimayn. Furaha halkan waa in la helo dheelitirka nolosha shaqada iyo midba midka kale waqti iyo feejignaan aan la kala qaybin. Wada qaata ugu yaraan hal maalin usbuuc kasta halkaas oo aad si fudud isa siinayso waqti iyo feejignaan aan la kala qaybin. Waxay noqon kartaa wax fudud sida habeen taariikheed, socod degdeg ah, ama maaratoon filim raaxo leh. Dem telefoonada oo si dhab ah midba midka kale diiradda u saaraya. Waayo aragnimada la wadaago waxay gacan ka geysataa abuurista xasuus cusub waxayna dib u soo noolaynaysaa dhimbiilkii guurkaaga.